بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtiin waxaan idin leeyahay fiidnimo wanaagsan maanta waxaan halkan u soo istaagay in aan idin kala hadlo riyo muddo dheer aan ku riyoonaynay oo rumoobi doonta saacada kadib haddii Allah raalli ka noqdo waa riyo aad u muhiim ah taariikhi ah saameynna ku leh mustaqbalka dowladnimada iyo dimuqraadiyeynta xukunka ee dalkeenna waa arrinta doorashada golaha deegaanka ee gobolka Banaadir oo qorshuhu yahay in ay qabsoonto haddii Allah raalli ka noqdo maalinta berri ah ee Khamiis 25 December 2025 oo ay naga xigto saacado kooban insha Allah walaalayaal tan iyo markii la ii doortay xilka madaxweynaha jamhuuriyadda aniga xukuumadda golaha wada tashiga qaran golayaasha sharci dejinta dalka waxaan dadaalkeena isugu geynay sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah loogana gudbi lahaa hanaankii dhowr qof ay go'aanka uga gaari jireen aayaha xukunka dalka iyo cidda xilka qabanaysa iyo cidda xilka weynaysa bilowgiiba annagoo ku jirna dagaalka khawaarijta dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu difaacayo midnimada dalka iyo dadaallo kale oo qarankeenna dan u ah sida ku biirista suuqa bulshada bariga Afrika qaadistii xayiraadda hubka ka mid noqoshada golaha ammaanka sahminta shidaalka iyo khayraadka dalka haddana waxaan isku howlnay in aan diyaarinno sharcigii doorashooyinka qaranka sharcigii xisbiyada iyo dhismaha guddiga qaran ee doorashooyinka oo dhammaantood lagama maarmaan u ah hirgelinta doorasho qof iyo cod ah alla mahadii howlahaas oo dhan way noo hirgaleen maantana waxaan soo gaarnay marxaladii codbixinta ee ay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda codkooda dhiiban lahaayeen si ay u doortaan wakiiladooda ku dhowaad 1 milyan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah ayaa isu diiwaan gelisay in ay codkooda ugu dhiibtaan doorashada golaha deegaanka ee caasimadda kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay qaadanayay kaarka codbixinta maalinta berri ah ilaa 20 urur siyaasadeed ayaa ku tartami doona golayaasha degmooyinka gobolka Banaadir walaalayaal doorashada golaha deegaanka ee berri ka qabsoomi doonta gobolka Banaadir waxay dalkeenna dadkeenna iyo dowladnimadeenna u leedahay micno aad u weyn waxay noqonaysaa doorashadii ugu horeysay ee Muqdisho ka dhacda muddo ka badan 57 sano waa taariikh mudan in loo dabaaldego waa tusaale xoog badan oo muujinaya sida dalkeenna u soo kabanayo dowladnimadeennuna u dhismayso waa markhaati fur caddaynaya in caasimaddu ammaan tahay waa caddayn ka markhaati kacaysa in dadka gobolka Banaadir ku nooli yihiin dad ilbax ah nabadda jecel una diyaarsan in ay si ilbaxnimo ah codkooda ugu doortaan dadkii matali lahaa iyaga walaalayaal waxaan si gaar ah ula hadlayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee reer Muqdisho waxaan leeyahay waxaad muujiseen dulqaad dhabar adeeg iyo dowladnimo jacayl sanado aad u badan ayaa dushiina lagu dagaalamayay sanado kale oo badan ayaa si gardarro ah la idinkugu tilmaamay in aydnaan dowladnimada u diyaarsanayn runta biyo kama dhibcaanka ahayse waxa ay tahay in shacabka gobolka Banaadir yihiin dad dulqaad badan
dowlad jecel naf iyo maalba u huray qarannimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. waxaa la soo gaaray waqtigii shacabka Muqdisho cabiri lahaayeen rabitaankooda. waxaa la soo gaaray xilligii ay dheefsan lahaayeen halgankii ay soo galeen iyo dhabar adeygii ay muujiyeen, ayna dareemi lahaayeen in ay wax dooran karaan waxna diidi karaan. walaalayaal, muwaadiniinta sharafta leh ee isdiiwaan geliyey ee kaarka codaynta qaatay, waxaan idinka codsanayaa, idinkuna boorinayaa inaad si weyn oo aan kala har lahayn ugu soo baxdaan doorashada deegaanka ee gobolka Banaadir ee qorshaysan berri haddii Alla idmo. muwaadin, ha ogolaanin in caqabado aan macno lahayn lagu dhigto saacadaha ugu dambeeya. ha ogolaanin in xamxamle fariimo cabsigelin ah kuu soo diro. ha ogolaanin in xumo iyo lugooyo lagugu qaraabaysto. walaalayaal, doorashadu waa xaq dastuuri ah, waana habdhaqan ilbaxnimo ah oo dunida oo dhammi ku go'aansato cidda xukumaysa. fadlan muwaadin, samee xaqaaga ah inaad cod wax ku doorato oo aan cabsigelin lagugu go'aaminin mustaqbalkaaga. waa arrin aad iyo aad muhiim ugu ah mustaqbalkaaga, mustaqbalka carruurtaada. muwaadinka sharafta lahow, maalinta berri ah ee 25 Diseembar 2025, indhaha dunida oo dhamme waxay soo eegayaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. sida aan u dhaqanno ayaana lagu qiimayn doonaa. waxaa jira dhinacyo badan oo ay dhibayso in shacabka gobolka Banaadir ay isdoortaan. waxaa kaloo jira kuwo u kaalmaynaya oo jecel in la fashilmo, laakiin dhammaantood waxaa ka adag rabitaankaaga iyo guud ahaan rabitaanka shacabka caasimadda. waa in aan dunida oo dhan tusnaa in aan isdooran karno, dimuqraadi nahay, dadkeennu nabadda jecel yihiin, Muqdishona doorasho u dareertay. waxaan ku adkaynayaa hay-adaha ammaanka ee dalka in ay sugaan amniga oo ay fududeeyaan habsami u socodka doorashada. shacabkana waxaan ku boorinayaa in ay hay-adaha ammaanka gacan ku siiyaan sugidda ammaanka si loo xaqiijiyo doorashadaani taariikhiga ahi inay noogu qabsoonto si nabad ah. waxaan ku soo gabagabaynayaa in dhowaan aad maqli doontaan warar kale oo farxad leh haddii Alla yidhaah. maalmihii wacnaa way soo socdaan, wayna soo dhow yihiin in sha Allah. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.